dhalinyaro aqoon-yahano ah oo dalka wax ku bartay ayaa ku biiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ay ka go'an tahay in naftooda ay u huraan dalka si ay argagixisada arxanka daran ee uga xoreeyaan goobaha farakutiriska ah ee ay ku dhuumalaysanayaan. Howlgalladii u dambeeyay ee qaar ka mid ah gobolada dalka ay ka wadeen geesiyaasha qaranka ayaa waxaa hogaaminayay dhalinyaro saraakiil ah oo tababaro culus ku qaatay gudaha dalka iyo dibaddiisa. Hadafkooda ayaana ah in magacii qaranka uu ku lahaa caalamka dib loogu soo celiyo isla markaana Soomaaliya aysan noqonin goob gabaad ay ka dhigtaan argagixisada Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqa dhiigga cusub ee ciidamada ku soo biiray ayaa laga dareemayaa dalka kadib markii kooxaha arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab ay gaarsiiyeen jab culus iyagoo gacantooda ka saaray deegaano iyo degmooyin badan oo dadka shacabka ah ay ku dhibaateyn jireen. Shacabka Soomaaliyeed ayaa iyaguna dareemay in la joogo dhamaadka jiritaanka nabadiidka argagixisada Al-Shabaab waxayna qayb ay ka noqdeen howlgallada dalka lagu xoreynayo. Ciidamada ayayna ku garab istaageen inay farta ugu fiiqaan goobaha ay ku dhuumalaysanayaan argagixisada laga itaalka roonaaday. Khubarada dhanka ammaanka ayaa aaminsan in markan ciidamada xoogga dalka ay awood u leeyihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka lagana maarmo ciidamada ajnabiga ah ee AMISOM waxaana muuqata cududda ciidankeena. Dowladda federaalka ee hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dadaal culus ku bixinaysa in qarankeena mar kaleeto uu lugihiisa ku istaago isla markaana la soo celiyo magacii ciidamada qalabka sida ee loo aqoon jiray libaaxyada Afrika. ballan ma noo tahay dalka inaan xoreyno walaalayaal ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalka xoreyno ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xuma inaan bedelno ballan ma noo tahay inaan u dhimano Soomaaliya